waxaa loo tixgeliyaa ninka ugu taajirsan abid taariikhda oo dhan. waxaanu yahay boqor muslima isagoo noolaa qarniga 14aad ee miilaadiga, oo haddii hantidiisa la qiyaaso waxa uu 4 jeer laabka lacag badan yahay. ninka ugu taajirsan caalamka oo dhan 2020 Jeff Bezos, aasaasaha iyo mulkiilaha shirkadda Amazon. waxaanu boqorkaasi ku noolaa waddanka Mali, waddanka Afrikaanka ee faqiirka ah, isagoo waddankaasi xuduud la wadaaga wadamada Algeria iyo Mauritania. waxa uu sameeyay website-ka Salary Network, website-kaas oo qiimeeya lacagaha dadka maalqabeennada ah, isagoo daraasad ku sameeyay 15 qof ee ugu maalqabaysan taariikhda, isagoo eegaya macluumaadka taariikhda iyo dhaqaalaha. waxaana natiijada soo saaray noqotay in qofka ugu horeeya uu noqdo Mansi Musa, boqorkii Mali. Mansi Musa waxa uu ahaa boqor xukumayay boqortooyada Mali, waxaanu yahay ninka ugu taajirsan abid taariikhda oo dhan, oo haddii la qiyaaso qiimaha lacagtiisa, qiimaha taa waxay noqonaysaa 400 bilyan. haddii la eego ninka ugu taajirsan caalamka oo dhan 2020 waxay hantidiisu noqonaysaa 13 bilyan oo keliya, halka Mansi Musa ay tahay 400 bilyan. taariikhda laga garanaya laga qoray Mansi Musa waxay ka bilowmaysaa marka uu kala wareegay xukunka walaalkii Abubakarka labaad, waxaana la yidhaahdaa waxa uu dhashay 1280, iyadoo kelmadda Mansi looga jeedo boqorka boqorada. waxaa waqtiga aad u fara badnaa magaalooyinka ganacsiga ah, iyadoo magaalada ugu caansan ahayd magaalo loo yaqaanay Timbuktu, taasoo ay ku kulmi jireen bariga Afrika iyo Masar. iyagoo boqortooyada Mansi yeelatay dhaqaale badan, taasoo ay soo saari jireen dahabka iyo biraha, iyagoo sidoo kale guud ahaan maamulayay ganacsiga dahabka caalamka oo dhan. waxay Mansi Musa sidoo kale soo saari jirtay milixda, iyadoo ay u sababahayd in ay milixdu ku badnayd dhulka boqortooyada Mali, taas ay milixdu waqtiga la qiimahayd qiimaha dahabka. iyagoo sheegay taariikhyahanadu in boqortooyada Mansi Musa ay soo saari jirtay milixda iyo dahabka kala badh caalamka oo dhan. Mansi Musa waxaa lagu yaqaanay alla ka cabsiga, isagoo ilaalin jiray salaada quraanka iyo dikriga, isagoo bixin jiray sadaqooyin badan oo ku caawinaya dadka masaakiinta ah. 1324 Mansi Musa waxa uu tagay xajka, isagoo kaga sii tagay xukunka wiilkiisa. marka uu ka soo noqday xajka waxa uu doonayay inuu ku wareejiyo xukunka wiilkiisa, isagoo doonaya inuu ku noqdo xaramkaasi oo halkaa ugu noolaado inta noloshiisa ka hadhay. laakiin taanu tagin ayaa uu ka hor dhintay. siday taariikhyahanadu sheegeen, sababta waxa sheegay waxay ahayd inuu dilay hooyadiisa aanu ka sahayn, taasoo arrintaasoo uu ka xumaaday, isagoo bixiyay sadaqooyin badan, iyadoo culimada waqtigaas ay kula taliyeen inuu tago xaramka iyo qabriga Nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa safarkiisii Mansi Musa la socday 60,000 oo adoom ah, isagoo hortiisa socdeen 500 oo adoom ah oo mid kasta sito ul dahab ka samaysan. oo Mansi Musa bixinayay magaalo kasta oo sii maro dahab fara badan, isagoo waqtigaasi boqorkii xukumayay waqtiga Masar dahab fara badan, taasoo ay sababtay dahabkii fara badnaa inuu dhulka Masar uu dahabku qiimo ahaan hoos ugu dhaco muddo 2 sano. waxaa Mansi Musa uu dhintay 1337 isagoo kala wareegay xukunka wiilkiisa Mansi Sulaiman.